السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تكحرن جنال كينا وهليها أمدا كسو دوادا قيبت اللوات طبعا كميد لحظا كالنوع هبلا وكالبحان إيو عوان كيني أها سيدات نولان كرتا نولال لماني فرحاد له مرلوات كسو دواو برنامج كينا هدي كودا فمدك كان كهوري وحان لنكي سكوسو ديغيا قيبت هوسي إفالة كبوغش وعن إن شاء الله ولا شي دي وحانا كورا جينيا إنادان كميد نقون طبعا كان النوع كو هويني إذا حقوق ذا أو كليسي وناكسن أتقانا أينك دلبنيسا ننكيذا مروليبا أيسن وحبك أقون ننكيذا واجبات كيسا لابو هويني إذا أنان إلالينين سرارك قري كيذا أهل كيذا صاحب ذا يدرس كيذا وحول بوي أكيهين أو أهاذي أيضا يقري كيذا با سدح هويني إذا دادك كلا اسكو قرحسا شقاذا يودادا دحذيذا وحين إلو ذا اسكو قرحنتو إني تهي ننكيذا أو كليا أفر هويني إذا هش oo kaliya leh waxay aragtaa ninkeeda xumaayaalkiisa ee ma aragto wanaagyaalkiisa shan haweeneyda fadeexada badan taasoo fadeexaynaysa ninkeeda hadduu xanuunsan yahay ama uu deen lagu leeyahay ehelkeeda saaxiibadeeda iyo asxaabteeda dhan waxay og yihiin in ninkeeda uu xanuunsan yahay sidaasi iyo in deen lagu leeyahay asiga lix haweeneyda aan nadiifka ahayn ee areebada ah labiskeeda nafteeda iyo neefta afkeeda kasoo bixaysa ay xun tahay oo ninkeeda ka fogaanayo intaasoo masaafo ah ayna ilowsan inuu cadayga joogo qiimo yar todobo haweeneyda sabab u noqoto reerkeeda inay nacaan ninkeeda waxay uga sheekaysaa ceebihiisa faraha badan iyo mas'uuliyadiisa oo ka gaabiyey haba ahaato mid run sheegaysa ama been sheegaysa sideed haweeneyda ka dalbata ninkeeda wuxuusan awoodin sida dahab fara badan jiif qaali ah iyo wixii la mid ah sagaal haweeneyda shakiga badan taasoo ka shakisa hadal walba oo ku dhaha ninkeeda mana rumaysata weligeeda si kastoo isku dayo inuu u sugo run ahaantiisa haddaba muxuu samaynayaa miskiinkani toban haweeneyda danaysa uwadkeeda oo keliya aanan danaynin ninkeeda waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan la soco qaybta xigta haddii aad nagu cusubtahay soo dhawow subscribe dheh gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo like saar haddii aad ka heshay lana wadaag asxaabtaada wixii talo iyo tusaale ahna nagu reeba qaybta hoose ee kommentiyada inta aan ku kulmi doono barnaamijkii xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh